قرحمو libaaxii dadku gacashanaya garbodkay cayaaraan shabeelkii wax goyn kula wanaagsan saaxiibayaal waxaan ahay maxamed qadar cabdi ku soo dhawaada barnaamijka tusmada sharciga toddobaadka iyo barnaamijka tusmada sharciga wuxuu ku saabsan yahay xaq uu qofku u leeyahay in aanu is-eedayn mowduucan wuxuu diiradda saarayaa in la fahmo waa maxay qiraal imise ayuun u kala baxaa maxaa loola jeedaa xaq qofku u leeyahay inuusan eedayn naftiisa xaqan ah in qofka aan lagu qasbin inuu naftiisa eedeeyo maxaa saldhig u ah ma bannaan tahay in qofka lagu qasbo in baaris lagu sameeyo jirkiisa sida in la baaro dheecaanka iyo wixii la mid ah sidee bay u ilaaliyeen xeerarka dalka iyo heshiisyada caalamiga ah xaqa qofka oo ah in aan la jirdilin si uu eedeeyo naftiisa ama u qirto fal dembi ah martida barnaamijkuna waa Dr. Cabdiraxmaan Xasan Wardheere ku soo biir wadahadalka kuna soo dir aragtiyo su'aal wixii kaaga baxa nambarada idaacadda oo kala ah #6962224 ama #6962224. tusmada sharciga waa barnaamij awoodsiin iyo horumarinba ah bulshada iyo bahda dhiganaysa cilmiga sharciga ee qanuunka waxa nagala qayb galaya asxaabta kale ah Muxsin Saalax Sheekh Ibrahim Qadan Maxamuud Guure Maxamed Cali Nuur iyo Shukri Umar Yusuf mar kale ku soo dhawaada barnaamijka tusmada sharciga su'aalo ma ka qabtaa dhanka sharciga iyo cadaaladda dib ma kala kulantay helitaanka cadaalad adigoo sharciga maray ma jeclaan lahayd in laga caawiyo ama lagala taliyo haddii ay jawaabtu tahay haa fadlan nagala soo xiriir nambarkan gaaban 2233 oo bilaash ah kaasoo diyaar kuugu ah xarunta kaalmo sharciyeedka ee jaamacadda Muqdisho hagaag falal dambiyeedyada waa kuwa dhac mar kasta haba kala duwanaadaane waxaana gala shakhsiyaad kuwaas oo markii gacanta lagu soo dhigo la maxkamadeeyo si loogu ciqaabo dambigii ay galeen waxa bahda sharciyaqaanadu ay ku taliyaan inaanu is-eedeyn ruuxa dambiga lagu soo ogay sidoo kalena aan lagu qasbin inuu qirto dambiga lagu tuhmayo waxaana sidoo kale laga digaa in loo adeegsado waxyaabo ruuxa ku qasbaya inuu qirto waxa lagu eedeynayo taas oo baalmarsan sharciga waana xaq dastuuri ah oo uu leeyahay ruuxaasi si aan loogu xadgudbin haddaba barnaamijkeena waxaan ku lafagureynaa xaqa uu qofku u leeyahay inaanu is-eedeyn waxaana sharaxaad buuxa inaga siin doona Dr. Cabdiraxmaan Xasan Wardheere marka hore soo dhow kadibna waa maxay qiraal imise ayuuna u kala baxaa bismillah alxamdulillah sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in wariye Maxamed Qadar waad mahadsantahay iyo asxaabtayda ila joogta Shukri Muxsin iyo Qadan iyo Maxamed iyo dhamaan howlwadeenada idaacadda himilo oo maaragtay wax badan aan isla qabanay waa mahadsan yihiin kulligood shaqo walba ay u hayaan idaacadda iyo bulshada Soomaaliyeed mowduuca haddii aan hor u galo qofka markii oo la rabo in la maxkamadeeyo waxaa laga maarmaan ah in la dhageysto la baaro la dabagalo ilaa laga gaaro qanaaco ku filan ama ilaa laga gaaro heer la dhihi karo qofkan dambiga uu galay kadibna loogu ciqaabo dambiga uu galay marka waxaa jira habraac iyo sharciyadeed oo loo baahan yahay in la ilaaliyo sidii cadaaladda iyo xaqiiqada loo gaaro hay-ado badan oo kala duwan oo ay leedahay maaragtay dawladdu leedahay ayaana ka qayb qaato qofkaas sidii cadaaladda loo marsii lahaa marka waxaa maantay mowduuceenu uu yahay qofka eedaysanaha ah marnaba ama sinaba inuu loogu qasbin inuu asagoo incrimination oo isku sameeyo criminalization oo isku sameeyo oo asiga naftiisa dambi uu saaro xaquna uu leeyahay arrimahaas oo kale marka uu dareemo inuu yiraaho aniga ma i qasbi kartid waxaan aan rabina korka igama saari kartid inuu yiraaho marka mabda oo ah qofku inaan lagu qasbin inuu naftiisa
dembi u yeelo macnihiis waxaa waaye saddex macno ayaa loo yeelaa ama saddex qaybood oo ka kooban yahay. kow, qofku inuu xaq u leeyahay inaan la qasbin, oon la dirqinin, oon la dhihinin marka lagu jiro stageka ama marxaladda eedaynta marka lagu jiro, inaana naftiisa dembi aan lagu qasbin inuu isku yeelo oo yidhaha dembigaas maaragtay anagaa le, inaan lagu qasbinin, inaanan lagu hogaamin qofka maaragtay marka la su-aalayo amba baarista lagu sameynayo CID da joogo, inaan lagu hogaaminin wax keenayo inuu naftiisa dembi ou sameeyo, oon loo bandhigin ama cagajuglin ha loogu bandhigo amba lacagaa lagu siiya hala yidhaaho, walaxuna asiga rabitaankiisa haynin inaanan lagu hogaaminin. ugu dambayntana inaanan bareshar lagu saarin in ou macluumaad ou qarsa lahay ama waxyaalaha xog ah ou haysto, inaan bareshar iyo cadaadis lagu saarin inuu bannaanka soo dhigo. marka intaas oo qaybood oo ka kooban yahay mabda'a oo kulligoodba isku imaanayaan qofka inaanan la cadaadin, inaan lagu hogaamin, inaan lagu qasbin macluumaad haddii aan xaaladan jiri lahaynin oo qarsa lahay, inaan xaalad loo abuurin oo ku khallifayso inuu waxaas oo qarsanayo oo bannaanka soo dhigo. maxaa loola jeedaa xaqa qofku u leeyahay inuusan is-eedayn naftiisa? taa waa ka hadlay. marka qayb yaraa ii dhiman oo ku saabsan su-aashaada oo aheeday meeqo u qaybsamaa qiraalka. maalan qiraalka laba qaybood waaye, ama waxa la yidhaaho qofku inuu sheego inuu waxaan yeelay ama waxaan uu sameeyey lagu eedaynayo. mid waxaa waaye shurdi ayaa la yidhaha, waa marxaladda baarista ay socoto oo booliska uu wareysanayo inuu xog bixiyo. midna inuu maxkamadda markii lasoo gaaro maxkamadda gudaheeda qaaliga hortiisa uu xogta ka bixiyo. midda saxda ah oo aadka maaragtay loo cogsadana waxna lagu dhisana oo la yidhaaho al-ictiraafu sayid al-adilla la yidhaaho, oo evidensiga iyo cadaymaha iyo marag muujinta maaragtay sayidkeedu waa la yidhaha. waa midda garsoorka hortiisa laga sheego oo maxkamadda horteeda marka jooga laga sheego. waxaa kale oo booliska iyo baarista iyo taxqiiqa iyo intuu socda la sheegayo waa kaalmaysi, laakiin midda dhabta oo la cogsanayo waa midda maxkamadda horteeda ka dhacdo. marka labadaas qaybood oo ah midda booliska agtiisa laga sheego iyo midda maxkamadda horteeda laga sheego ayaa loo qaybiyaa. ulajeedka guud oo ah qofku inuu naftiisa dembi isi saarana waa tan haddii aan ka hadlayo, waa in qofka uu marnaba aan lagu qasbinin, oon lagu dirqinin, oon lagu hogaaminin, oonan bareshar iyo cadaadis lagu saarin in uu macluumaad haddii uusan duruuftan iyo maaragtay circumstancekan ku jiri lahaynin oo qarsa lahay, inaanan bareshar lagu saarin oo bannaanka soo dhigo. waata marka qofka xaq ma u leeyahay inuu iska aamuso marka la baarayo? laba shay waaye aan ka hadlayaa oo arrinta aamusnaanta ku saabsan. dowladaha iyo heshiisyada caalamiga ah maaragtay iyo dowladaha qaar waxay ay maaragtay xaq ka dhigeen salantiga ama aamusnaanta qofka eedaysanaha inuu xaq u leeyahay. go'aamo xaq u leeyahay markii uu arko waxa laga raadinayo wax naftiisa u dhibaya oo khatar gelinaya, marka laga dalbado inuu aamuso xaq u leeyahay. lagumana qasbi karo in laga soo saaro waxaas oo qarsaday. laakiin waxaa jira wax uunan loo ogolay inuu qariyo. maalan qofka eedaysanaha haddii la yidhaaho magacaa, aabbaha magacii, hooyadaa magaceed, baasaboorkaada keen, intaad degan tahay, personal information oo qofka eedaysanaha kow laga qoro marka la weydiinayo inuu misleading sameeyo amba tadliil uu sameeyo oo waxa jirin uu sheego amba uu aamuso oo raa magaciga ma sheegayay, waa ma jirayso. marka waa la xiri karaa, waa la cadaadi karaa sidii looga helo xogtaas. laakiin waxa laga hadlayo waxa waaye markii waxaasoo dhan uu sheego oo la yidhaha waxaa iyo waxaa ma gashay, waxaasaa lagu eedayo hayaa dembigaas ma gashay, marka silent uu leeyahay oo dhihi karaa, iska aamusi karaa. inkastoo dowladuhu kala duwan yihiin oo inuu hadlo fasiraadda aamusnaantaas qaabka loo fasirayo
dood badan ka taagan tahay. xaqan ah in qofka aan lagu qasbin inuu naftiisa eedeeyo maxaa saldhig u ah? waxaa saldhig u ah marka wax la leeyahay waxaan xaq waaye, marba haddii lagu yidhaha waxaan waa xaq, saldhigga ugu weyn oo la fiiriyo waxaa waaye waddanka markaa la joogo arrintan dastuuriyan xagga dastuurka ma ku sheegay? waa ku sheegay. aan leenahay Soomaaliya oo kale way ku sheegeen faqrada 4 qodobka 35 qofka ma lagu qasbi karo mana lagu dirqi karo inuu sameeyo ictiraaf uusan asiga rabin marka horeba inuu ictiraafkaas ama qirashaas uu sameeyo. dawladaha dhanna way qabaan qodobka, international conventionska amba heshiisyada caalamiga oo dhan way ka hadlayaan oo soo baxay qaramadooda ka soo baxay. xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed xeerka habka ciqaabtana asigana uu ka hadlaa oo wuxuu leeyahay qofka haddii si gacan ka hadal ah iyo violencega ama cunfi oo ku jiro qiraalka looga keeno ama dembiga inuu qarto looga keeno waxa ka ratimayo qiraalka iyo nooca waa wax kama jiraan totally waxba kama jiraan. quraanka diinta islaamka haddaan u noqono waxaan aayad suuratul Ahzaab ku jirtay ayaan mar walba oon aqrinayno aan aragnaa والذين يؤمنون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما عظيما. dadka mu'minaadka ah iyo gabdhaha mu'minaadka ah iyo wiilasha mu'miniinta ah dadka waxaynan galabsan ku qasba ee sheeg yiraahdo waxaas sheeg waa qabtaa waa yeeshay sheeg yiraahdo faqad ihtamalu buhtaanan been abuurasho waxay wadaan waxay qofka diyaar u mahay wixii aan sheegta adigana waa jirdilo haysaa wa ithman dambi waay oo cad. marka ayadaasna hadii dhuxulkeeda hoos la fiiriyo qof inta la soo qabto oo ninka xoog badan oo hubeysan oo soo qabto oo meel keena oo u meeriyo waxyaabo oo aan jirin ama ha jiraana laakiin asiga ma rabiyo inuu banaanka soo dhigo maxaa dambiyada oo qaar waxaa jiro xataa ay fiican tahay inaad qarsatid inaad adiga qarsatidba oo aad la aamustid ilaahay kaliya u sheegatid. marka haddii adiga lagu jirdilo walax adan rabin inaad qirato ee lagu qasbo oo maaragta bighayri maktasabo qofkaas ma qof oo xadgudub sameeyo noqonaa. waata marka ma bannaan tahay in qofka lagu qasbo in baaris lagu sameeyo jirkiisa sida in la baaro dheecaanada iyo wixii la mid ah? okay mas'alada muhiim waaye, su'aal aad maaragta aan u jecelahay waaye. qofka intaan inta u gelin wax yaraan dulmar ku sameynaa meel yar aan taabanaa noocyada dadka marka la rabo in laga soo saaro xog la adeegsado oon hadda dhahaynay sharciyan ma banaano aaday u badan yihiin laakiin waxaa common ah oo laysla wada garan karaa koow torjarka amba jirdilka, qofka in biyo la cabsiiyo, qofka in koronto lagu qabto, qofka in ay lagu diro maaragtay oo qol lagu geliyo. hadda waxa commonka ka caalamka waa ka arintaas marka aad baa loola diriraa oo waxa laga yaabaa xataa qofku inuu u dhinto, qofku inuu naafoobo, ayaa laga yaabaa qofka inuu xataa ka qaado psychological problem oo weligiis ay la noolaado ayaa laga yaabaa. marka arintaas waxa way xuquuqda aadanaha ay ka dhan tahay maaragtay si cad u jibinaysaa nolosha qofka ay khatar ku tahay, amaankiisa ay khatar ku tahay, xorriyadiisa ay khatar ku tahay. maxkamadii cadaaladda iyadoo la maxkamaday lahay laana waxaan hadda laga keenay cabsigelinta looga keenay bari maxkamad baa lagu saaraa, maxkamadaas cadaalad noqon mayso. marka qof oo laga keenay koronto iyo biyo la cabsiyay 9 saac oo habeenimo iyo ay lagu diray laga qoray waxba ma noqonayaan. arintaas waa la adeegsadaa. marka ayadana waa inaan ogaano waxaa jiro dad aan adeegsanin noocaas oo qalafsan oo classic ala dhahaa waligood wax jira waa la adeegsan jiray waa la casriyay baashi. waxaa laga yaabaa adiga berito inaad noqotid maaragtay victim aan noqotid arrimahan oo kale u noqotid marka inaad baratid muhiim waaye. waxaa la jiraa wax la yiraaho af carabi aan ku naqaano tanwiim al-maqnaadisi, qofka in hurdo oo artificial lagu sameeyo. marka macluumada
maskaxdaada ku jirto ood xogaalka u tahay oo dhan waad sheegi kartaa, laakiin waxa aad sheegayso consequenceska iyo resultiga ka dhalanayo oo laga baabi'inayaa markii hurdada lagu siiyo oo qalabka lagu isticmaalo. marka waxaad ku nooleedo dhan oo dhan waa daldalee. war waxaa sheegayso waxaa ka dhalan kara, dhibaa ka dhalan kara, ma nagu dhacdo waxaan isku sheegin khatara ka qaybtaasa laga baabi'inaa. marka microphone soo fadhiisanayaa oo daldalma waliba soo faraxsan oo qoslaayo, su'aalaha dhan wuxuu uga jawaabayaa si xaraka leh, mana ogin annaga dadka aan cilmiga lahayn, laakiin qofkan uu hurdada anaqaana hurdaaye, hurdo ay dadka wax baara oo yaqaaniin ayuu hurdo hayaa. waxaa ka maqan marka hadda warka aan sheegayo waxa qofka dhageysanayo iga imaan karo dhan waa oga, qaybtaas ka imaanayso laga baabi'ina. waxaa la yiraahdaa hurdisiinta oo artificial ayaa lagu sameeyaa. waxaa jira jihaas kale oo la soo saaray caalamka oo la yiraahdo jihaaska cadeeya falsa iyo through. waxa qofka lagu rakibayaa xaqiiqo miyaad sheegaysaa ama sabeen baad sheegaysaa, waxaan ka ogaanaynaa qalabkaas. marka su'aalaha la weydiiyaa marka jawaabtana qalabka waxa uu qarjafayaa nooc markuu sax yahay, markii uu khalad yahay si kale uu qajafaa. jihaaskaasna waa la isticmaalaa. waxaa kaloo la isticmaalaa kaniini oo daroga ayaa qofka loo isticmaalayaa oo qofku wacyigiisa caadi waaye, laakiin waxaa laga helayaa xog oo muhiim ayaa laga helayaa. waxaasoo dhan marka waxaa la yidhi dadka sharci yaqaanada resultiga ka dhalanaya muxuu yahay waxay bixiyaan, waxaa la yidhi waa null and void, waxba kama jiraan, baadil laaqi waaye. maxaa dhacay? kumaysan imaanin qofkan rabitaankiisa iyo jacaylkiisa iyo waxuu rabo inuu bixiyo ikhtiyaarkiisa kuma imaan, waxay ku yimideen qasabkuna kaliya ma ahan qofka in qoorta amba dhuunta qora laga saaro. qasabku wuxuu noqon karaa wax walba oo qofka gaarsiinayo xog oo ka shalaayayo bari inuu bixiyey in laga keeno looga keeno cilmi. su-aashu marka waxay aan soo gudbayaa taade oo aheeday mabda'an oo hadda aan ku magacaabayn muxuu ahaa xaqa qofka uu leeyahay inaanan la dirqin oon la qasbin si uu dambi u qirtamayno. ma jirtaa xad ma leeyahay, limited ma leeyahay, mase waa absolutely wuu iska furan yahay oo wax walbaba maya. waa kuu sheegay doonta qofka magaciisa dii la weydiiyo oo xog laga weydiiyo personalitygiisa uu diido waa xiraynaa. sharciga ku taalla waa la xiraa. maalintii uu xogta keenana waa la dayhaa. xog falsa hadduu bixiyo sidoo kale laga shakiyo waa la xiraa ilaa xogta dhabta oo naga siiyo. waxaa kale oo markii la yidhaha basmaa laga rabaa, fingerprinting laga rabaa, haddii la dheecaana laga qaadaa. haddii la yidhaha waa inuu yidhaaho yes I am ready. haddii uu diido waa laga qabaha basmaadka waa laga qaadaa, dheecaanka waa laga qaadaa, wixii DNka waa laga qaadaa, dhiigga waa laga qaadaa. kaas waajib waaye masaa-ishaas. marka mana u baahno eedaysanaha consentigiisa iyo raalaashadiisana uma baahan. maxaa yeelay cilmi baaris waaye, taxqiiq waaye, laakiin way kala duwan yihiin. waxaan waa gala dheh, waxaan waa qabaa dheh, waxaan waa sameeye dheh. marka maxaa la qirtaa horta? waxaa la qirtaa kow waxaan waa iri, waxaan waa sameeyey inuu qofku yidhaaho. waxaa kaloo lagu qasbi karaa in lagu dhaho qoragan adiga ma lihido, bastooladan baaburka kuu saaran iyo bambadan adiga ma lihido, mana leh, waa loo saaray, anaa le dheh, hubkan anaa la dheh, suntan anaa dheh, kiimikada anaa maha le dheh aa la dhahaa. marka labada mu banaano. waxaan waa sameeyey ouna samayn ouna rabin inuu xataa sheego, iyo waxaan anaa le, mudidan anaa le, bastooladan anaa le, inta mu banaano. marka ictiraafka iyo qirashada iyo conversationka wuxuu leeyahay yani howlo badan uu leeyahay oo qasab ah. kulligoodna waxay ku wareegayaan inuu yahay ikhtiyaar iyo rabitaan iyo go-aan qofka eedaysanaha u gaaray inuu ku yimaado oo macno ku yeelan karaa.
marka waxaa ka dhawaajisay in maaragtay qofka haddii maaragtay aysan wanaagsanayn ama aysan sharciyan habbooneyn in loo adeegsado waxyaabo qofka xogtiisa bannaan keenayo marka bal ka waran markii qofkii xog laga duubo oo xogtii la baahiyo kadib uu qofkii normal si caadi ah uu noqdo maxkamad yani ma u gudbisan karaa oo ma dhihi karaa xogtaas anagu aanan maaragtay raalli ka ahayna laga keenay okay kalaam jamiil waxaan ku iri aan u malaynayo waxaan dhahay qiraalka oo qofku uu dambi oo qiranayo waa laba qaybood mid shurdi ah oo hay-adaha baarista dhexdooda looga qaado iyo mid garsoor oo maxkamadda iyo howlka maxkamadda dhexdeeda looga qaado maxkamadda dhexdeeda dabcan kama jirto qofkii suuxsan ama tanwiin maqnaadiisi ah oo la hordisiiyey ama daroo ku jirto la keeni maaha laannahu bis waa mihii ugu dambaysa waa inta badan waxaa soo sameeyo hay-adaha baarista marka haddii baaruhu uu keeno xog oo uu maxkamadda horteeda ka sheego wuxuu soo baaray qofka waxaa la weydiinayaa waxaan lagaa qoray oo hadalladaadii ah sax miyaa ma jiraan mase ma jiraan waa in la weydiiyo weliba markii oo qaaligu dadka wacdiyo oo uu ka wacdiyo dadka in loola dhaqmo si bini aadamnimada ku dhisan xuquuqda dadka la ilaaliyo xorriyadooda la ilaaliyo dadka la daryeelo karaamadooda la ilaaliyo marka uu wacdiyo kadib ayuu leeyahay haye waxa tuhmada lagu keenay oo aad sheegtay inaad gashay sax miyaa igaarkey gabartey mase sax ma ah meeshaas asaga waxaa laga rabaa meelaha intuu fiirfiiriyo booliska iyo saraakiisha maya jawigan waa ka duwan yahay jawigii saldhigga waa ka duwan yahay jawi kale waaye waa in garsooruhuna abuuraa jawi ka duwan tii hore oo garsooruhu uusan qoladaa ku milmin oo ku dareemayo inuu maanta fursad haysto waxuu hadda inta ka sheegana yihiin waxa kaliya oo loo diiwaan gelinayo oo natiijada xukunka ay ku dhismayso amba ciqaab ha noqoto amba wixii kale ganaax ha noqoto iyo xabsi amba dil marka halkaa markuu joogo muxuu dhihi karaa saydii waxa meesha ku qoran oo baaro soo sheegay ma jiraan kumana dhisno xaqiiqa waa mid lagu keenay qasab iyo sanduleyn iyo xuquuqdooda lagu xadgudbo kadib qaaligaa laga rabaa soo ula falgeli lahaa waana qoranta waxuu ka yeeli lahaa arrintaas oo kale markii uu ay soo baxdo waa tahay titore waxaa ku jirto in qofka uusan asi is-eedeyn oo dabcan uusan marka haddii lacala qofka uu is-eedeeyo isaga nafsiyan oo dabcan uu qiraal sameeyo marka ma la dhihi karaa qofkan wuxuu u baahan yahay in isbitaal la geeyo si loo soo baaro maskaxdiisa qofka horta asiga hadduu is-eedeynayo oo hay-adii booliska dhexdeeda markii baaristu ay socotay oo leeyahay waxaan waa sameeyey markii maxkamadda la keenana wixii waa sameeyey uu leeyahay qaanuun waxaa noo yaala la yidhaaho qirashadu waa boqorka caddaymaha marka waxaan haysanaa wax cad bis shaki wuxuuna geli karaa markii shuruudaha qirashada u dhigan la waayo ayuuna geli karaa oo la leeyahay yaa duraayo oo dhahaya marka ninkan wuxuu daldalmaayo oo qiranayo yani sax ma ahin maankaa looga jiraa mentally illness waaye maskaxdaa looga jiraa yaa dhahaya xerilaalihii soo oga dacwada oo keenay qofkii uu qirayo hayaa wixii waa galay waa sameeyey uu leeyahay maxaa lagu duri karaa qirashadaas oo maxkamadda horteeda ka dura maxaan ku duraynaa hadda waxaan kaa leeyahay inaan ku durno waa la qasbay xaqowna uu leeyahay inuu sheegto in lagu qasbay oo yidhaah ayaan lay qasbin aniga nafteyda dembigan waa gala idhaah marka ma laga yaabo mararka qaar inuu u baahdo in maaragtay qofka in laga shakiyo macnaha dembiga inuu dembi weyn yahay iyo sida uu qiranayo xeerku wuxuu dhigayaa dembiyada culculus dembiyada fudfudud qofka hadduu qorto maxkamadda horteeda ka qorto xukun waa loo diri karaa laakiin dembiyadu hadday yihiin dembiye culculus 10 sano ka badan xabsi ah amba dil ah haddii uu yahay lama rabo qirashadiisa kaliya in lagu kaaftoomo waa in dacwada dhagaysigeedu ay socoto qaybaha kale qirashada kaliya aadin evidence-ga kaloo lahaayo iyo caddaymaha kaloo lahaayo dhan ayaa la aadayaa waa isaas loo leeyahay
sida aad sheegaysaa ma ku jirto waxa laga yaabaa inay ceebo kala soo baxaan nin oo dhahaya qodob dil asoo ku eedeysan waan dilay qodob xabsi daa'ima soo ku eedeysan waan sameeyay dhahaya maxkamadda horteedana ka dhahaya soo faraxsan dhahaya yes ninkan waaba qirsan yahay anigu hal la socodsiiyo shaqadana hal la qabto ciqaabtu leeyahay lagu qaado lama dhih ya waxa la yiri duruufaha ku heeraaraysan qarashadan oo dhan saan ogaano dacwadu ha socoto maxaa kaloo la hayaa oo qarasho ahayn oo cadayman ah saasa la leeyahay waadix ma waa tahay markaan waxaan soo dhaweynayaa ka qaybgalaha ugu horeysa waa Shukri Cumar Yuusuf. Shukri, soo dhow su-aasha aad weydiin lahayd Dr. Cabdiraxmaan. هذا هو حسن تاي سؤال waxay tahay qofka hadii loo hanjabo uu dhaho dambigaas waa sameeyay kadib muddo isagoo xirnana la ogaado dambigaas inuu sameeynba maxaa lagu sameyn karaa? Shukri, aad bay mahadsan tahay su'aal oo fiican waaye in la ogaado xogteeda qofka markii lagu sameeyo jirdil ama lagu sameeyo in la dhexgeliyo inuu wax qirto oo asiga asoon raali ka ahaynin oo damiirkiisa la tashanaynin oo dambi isi saaro kadibna ay caddaato dambigaas in lagu qasbay inuu isi saaro maxkamadda horteeda cid meesha ka caddaanayso oo sheegto oo qaaliga u sheegto wada aniga dambigan qoorta la geliyay qiraalka markii layga qaadayana ma ahaynin mid sax ah dhibaatana la geystay qaaliga waxa laga rabaa sida uu xuquuqda dhibanihi kiiskan oo u ilaalinayo eedeysanaha xuquuqdiisana inuu ilaaliyo oo yiraahdo yaa kugu sameeyay laba mid waaye marka waxa lagu sameeyay inay yihiin wax dambi cad ah oo qodob oo dhigaayo xeerka ku qoran diinta islaamka ku qoran oo sharciga dalka looga dhaqmo ku qoran in loo geysto مثلا dhaawaca loo geystay xanuun oo loo geystay wala darbaaciyay waxa soo dhan qodob dhigaayo qodobkaas lagu soo eedeynayaa mas'uulkii ka dambeeyay haddii laakiin sharafid iyo bahdil iyo waxyaalo kale lagu sameeyo hadda qodob ahaynin laakiin akhlaaqiyan oo lagu sameeyana مثلا in dharka laga dhigay ama hadalla oo cagajuglayna loo sameeyay la cagadilay wixii sharcigu dhigay oo qodob dhigaana qodobka ayaa lagu eedeynaya waxuna dhigayna mas'uulkii ka dambeeyay ninka commanderkiisa ah cidda sargaalka maamula booliskaas ayaa loo sheegaa oo la leeyahay qofkan dadka ka celi talaabana ka qaad dhibaato ku haya dadka oo maaragtay eedeysanayaasha iyo dadka la baarayo si xuma ula dhaqmaa sidaas ayaa looga arsanaa haddii ximintiisa ama arrimo oo kiis madaniga ka dhashay meesha oo magdhow u baahdana maxkamadda madaniga tagaa wuxuu leeyahay arrimahan lagu sameeyay indhaygan ku waayay dhigaygan ku waayay xibno muhiim ah ku waayay baaris lagu sameeyay jirdilka lagu sameeyay sadarteeda waxaan rabaa compensation magdhow iyo tacwiidaan rabaa in la siiyo oo raadsanayo wiis waa tahay markaan waxaan soo dhaweynayaa Maxamed Cali Nuur. Maxamed, soo dhow su'aasha aad weydiin lahayd Dr. Wardere. waan dhawahay Cabdikhaar aad iyo aad baa u mahadsan tahay doctorka waxaan weydiin rabaa doctor waxaan ognahay dalkeena dagaalo badan oo sugeeyo soo maray dad badan oo dhinto cid dishay ama dhacdooyin badan oo cid dishay aan la ogeyn baa dhacay marka waqtiyada kamid marka qaar waxaa dhacdo in qof baraha bulshada kala soo fariisto oo bixiyo xog oo leeyahay dadkaas anaa dilay ama anaa wax isgeystay dhacdadaas kadib qofkaas hadii la soo eedeeyo oo maxkamad la hor keeno qiraalkiisaas ma lagu xukmi karaa oo maxkamadda markii la hor keeno hadduu dhaho anigu xogtaas si sax ah lama jeedin ama waa iska iriyo kale hadduu dhaho xogta oo baxshay ma tahay xog wax lagu xukmi karo ama qofkaas eedeyntiisa lagu wadi karo ama oo ciqaab ku wajihi karo taas waa su'aasha koowaad su'aasha labaad oo aan doctor ku weydiinay waxa weeye qofka hadduu xog culus oo xog dawladeed oo kala ah oo hayo diidana maadaama li qofka xaq waxa uu leeyahay inuu soo xogtii oo aan lagu qasbin oo qasab looga soo bixin wuxuu diiday inuu xogtaas soo gudbiyo ma jirtaa wasaa'il kale ama qaab kale oo
isagoo aan xaqiisa iyadoo la ilaalina qaab kale xogtaas maadaama dowladdii waddanka jiritaankiisa ay ku xiran tahay qaab kale looga soo bixi karo xogtaa ma jirta oo la adeegsan karo aad iyo aad baa u mahadsantaha doctor su'aalood ayuu maxamed sheegay oo aad u balbalaaran culculus mid waxaa waaye dadka ayakoo cidna ayna weydiinin suuqa ama baraha bulshada ha naqato ama suuqa wax ka sheega wax iska sheega oo iska daldalma oo wax iska xanta macno weyn male qofka warkaas iska sheega oo xud iska sheega haddii la qabto marka qofkaas oo la yidhaaho xogtan waa loo baahan yahay kaala imaad si ay miro dhal u noqoto waxaa sheegayso oo loo dabagalo ee la soo wado ee la keeno markaasaa waxaa la leeyahay hadda noo sheeg ama booliska ha yiraahiino ama maxkamadda ha tiraaho marka booliska haddii ay weydiiyaan ay u wacaan isagoo degan oo la damaanad qaada xorriyaddiisa oo la damaanad qaaday macnaha moralitigiisa oona hadda la qasbaynin oo raalli-aashadiisa lagu qaaday oo laga qoro ee la geeyo maxkamadda lagu geeyo inta kiiskaa laga dhigo oo la yidhaha qofkan ayaa markhaati ka ah kiiskan oo yani haddii aan u kala qaadan labo maxamed qofka waxaa sheegayo bulshada ka sheegayo inuu markhaati yahay oo ka hadlayo inuu yahay anaa markhaati ahay waxaas markay dhacayeen inuu joogay oo goobjoog u ahaa oo markhaatinimo looga faa'iidaysto iyo inuu asiga tajriimu daad samaynayo oo leeyahay waxaas anaa sameeyey labada waa naga kartaa markuu baraha bulshada wax ka sheegayo labada maxaa la rabaa marka in loo yeero oo la qiimeeyo wuxuu sheegayo maxkamadda horteeda la geeyo laga qiimeeyo qaaliguna markaas oo go-aan ku qaato si laga yeelayo midaas laakiin banaanka wax iska yaala oo banaanka laga sheegay oo baraha bulshada lagu arkay macna oo xukun lagu dhisi karo ma ahan qofka waa in la soo qabto la geeyo meeli loogu talagalay baaristi kadibna maxkamadda horteeda waxa ay ku dhammaadaan oo wax ka sheego midda labaad waxaan u malaynayaa inay tahay qofka xog uu haayo dowladeed waxaa waaye crimeska iyo dembiyada ha naqdaana kuwa against ku ah individualka iyo shakhsiyaadka ama ha naqdaana kuwa lid ku ah dowladda iyo interestigeeda dembi waa dembi qofkan haddii uu raalli ku yahay waxaan inuu sheego mid dowladeed iyo mid shakhsiba ha sheego laakiin yaan la qasbinaa la yidhi yaan laga raadinin walax uunan rabin inuu sheego walax aan jirin yaan dusha laga saarin marka waxaan wax dowladeed waaye waa inaad sheegtaa ma jirto waxaan qof hebela ku haysato nin odayahay sheeg waryaa ma jirto mabda waa mabda guud oo ah qofna xaq looguma le in lagu qasbo dembigan inuu galay wuxuuna xaq u leeyahay ikhtiyaarkiisa iyo rabitaankiisa warkaan inuu ku sheego ayuu leeyahay marka meeshaas xoogaa faahfaahin haddaan ku daro saddex arrimood oo muhiim ah oo mabda aanu leeyahay waxaa jirta mabda qaanuuniya waaye cid walba oo dowladda ka tirsan ayaa waxaa laga rabaa markii ay baarayaan qofka inay ilaaliyaan oo ilaahayn haye ma qarsan tahay cid maa ku qasbo hayso qawlan wa ficlan maa lagu qasbo hayaa maya soo maa warkaa markaa sheegayso waa aragtay markii la joogo nootaayada oo dokumentiyada la kala wareejinaya dhulka hebel wuxuu dhulkiisa ka giday hebel ayadoo aysan jirinin cid qasbayso qawlan hadal iyo wa ficlan aysan jirin ayuu hantidan ka gatay hebel kuna wareejiyey milkiyadeeda asagoo ka qaatay intaasoo lacaga ayaa la qoraa marka arrimaha kiisaska oo jinaaigana ayadana sidaasoo kaleeto la rabaa waa in waxaan qaanuuniyan loo qaato cid walbana ay ilaaliso midda labaad waxaa waaye qofka eedaysanaha noloshiisa xijaab baa saaran sida annaga caadiga aba xijaab noo saaraya noloshayna maxaa u farageliya qof nolosheed qofkan eedaysanahana waa noloshiisa xijaab baa saaran asalna waxaa waaye qofkan inuusan demi gelin asal ah
adiga dambi ma sheegaysaa inuu galay adiga caddayn ula imaad adoon ku xadgudbi qofka noloshiisa marka xijaabkaas adiga noloshiisa saaran qofka ka qaadin okay mabda'an oo qof ha qasbin ma in kaliya periodka oo trialka maxkamadda darajada koowaad ma ahin maxkamadda ma ahin marka oo boolisku baaris sameynaayo abiil koortiga iyo rafcaanka ma ahin maxkamadda sare ma ahin dhammaan darajo walba oo marayo kiiskan oo ah baaris iyo dhegays iyo maxkamad walba oo marayo xaqa ma harayo mar walbaba qofkan waxaa laga dhegaysaa wuxuu raali ku yahay inuu noo sheego aydan qowlan wa ficlan la qasbayn wax la qasbayna waa idin sheega oo waxyaalo waxa jira mabdu ma ayna la dhahan absolutely waxyaabo waxa jira qofka laga rabo inuu okay marka qofka xoriyadiisa in la ilaaliyo xurmada jasadkiisa in la ilaaliyo karaamiisa in la ilaaliyo ku jirto sadarteed dawlad miya xaqan iskale musabray fadaale male xaqu waa tahay waxaan soo dhaweynaynaa qadan maxamuud gure qadan su-aasha aad weydiinayso Dr. Wardheere waa mahadsantahay su-aasheeda waxay tahay qofka xilliga qirashada asigoo aan lagu qasbin inuu qirto sida in yacni orjirdir lagu sameeyo ama in koronto lagu dhajiyo ma jira habab kale oo loo isticmaali karo sida yacni qofka ma banaan tahay in oo la yiraahdo haddaa qirato dambiga haddaa qirato ciqaabtaada ishag way ka yaraanaysaa ma banaanta halkaas oo kale in loo isticmaalo sharcigan muxuu ka qabaa bismillaahir rahmaanir rahiim qadan waa mahadsantahay su'aasha ay weydiisay jawaabteeda kooban qofka waxa uu rabo inuu sheego kaliya ayadoonan wax taasiir iyo saameyn lagu sameeynin ayaa loo diiwaan gelinayaa ama ha noqoto waqti xilliga baarista booliska ama xilliga maxkamadda labadaba miday noqoto waa inay radiisa iyo raalaashiisa ay ku timaad haddii aan wax uusan rabinin lagu qasbo qaabka loo qasbay waa midka ay weydiinayso hababka loo qasbay waa kala duwanaan karaan waxaa laga sii karaa waxaa la dhihi karaa waa lagu dilaa dhibaataa kaaga imaanayso meeshaan haddaad waxaan qariso caawa badda lagu geynaa waxaa lagu siinayaa lacaga lagu siinayaa adiga noo qirbis waxaan inaad gashay dambiga laga fududeynayaa waxyaala saas oo kala duwan ayaa jiro oo qofka oo u jeedo oo u xilanayo ama uu cabsanayo wixii oo u xilanayo مثلا hadii la yiraahdo dambigan iska qiro insha Allah culays badan ma kaaga imaanayo saa la yiraahdo oo dhinacaas lagu hogaamiyo oo soo raaliya oo sheego uu yiraahdo aniga dambigan waa galay ilaahay dartiis ayaan u sheegayaa in aakhiradeed iga xumaato ma rabo hadii uu yiraahdo dhinacaas la aad sax waay waaba galiya moogtahay ma cabsanaayaba aakhiro ka cabsanaya qofkan ka cabsamaa waxa rabaa qofka wax baarayo ka soo horjeedo inuu ka baqaayo bis hadii laakiin aakhiro la xasuusiyo oo la yiraahdo war aakhiradaada ka daran aakhira waxba lagu qabsamaayo dawladdan way iska fikirtaa ya waa lagu cafinayaa sharciga ka yaal hadaad sheegto hadii dhinaas lagu raqba geliyo wixii ka soo baxay waxay noqonayaan iqraar sax oo maxkamadda agteeda ilaahay ka cabso adduunkan aakhira ka daran asaas ali rasuusaas ku keena wax dhiba ma dura ma la duri karo laakiin waxa la diidayaa qofkii ama birmaan ula taagan oo bud meeshan ula taagan oo cabsi gelinayso ya oo dhahay sheeg wariya taas waa mid la diidayo laakiin qofka hadii la wacdiyo oo ilaahay lagu xiro oo la yiraahdo waxaan ciqaabta intaan waa kaaga fududaa karaa sifaalaha dambiga fududeeya lagu fiirinayaa waxaan iska qir ya noocaday hadii la yiraahdo abu okay waa amana xaqa waaya xaq qirashada asiga doortmo laakiin hadii la cabsi geliyo doctor marka la fiiriyo qofka waxa la yiri inuusan dambigiisa asi qiranin marka hadii xitaa uu galay inuu marka bal ka waran soo caqabad kama dhalanayso in xogtii la helo oo ku aadaneed qofkan wixii uu galay ama muddadii inay ku dheeraato sidee suuragal ku tahay in xogta qofkan maadaama uu dambigii asi u galay uusan qiranaynin sidee lagu heli karaa xogtaas warku waa koobay intaas waa qofkan
dembiga ma qirayo hayo no evidence-ga ama hababka wax lagu caddeeyo qirasho kaliya maaha tab kala raadi qirashadu waxay ka mid tahay maraq waxaa la yidhaaho adilada ama duruqda ama wadooyinka dembiga lagu caddeeyo ay ka mid tahay hal ka mida waa haddaad kan weyso maxaa hele wadooyin kale oo dembigan ku caddaa karo kuwii raadso haddii aanan waddo kale lahaynin ilaaha asturay asigana ma sheego haaye maxaa u dirqee maxaa ka dheefay adiga in dembigan banaanka soo baxo caddayman kale raadso haddii aad weyso ka leexo haddooan asiga kuu qireen yaa jirdil ha ku samaynin cagajugleyn ha ku samaynin macnaha athar waxaa jiro qowl saxaabi oo waxaa jira ah inaad 1,000 qofood oo dembi gashay oo caddayma loo waayey oo shaki ku jiro aad fasaxdid yaa ayaa waxay ka fiican tahay hal qof oon dembi gelinin tuumo darteed inaad wax u yeelaysid marka adiga tuumo wax u yeelin qof waa tahay markaan waxaan soo dhaweynayaa ka qaybgalaha kale waa muxsin saalax sheekh ibraahim muxsin su-aasha aad weydiin lahayd dr wardheere ustaad waxaa rabnaa inaan fahmnaa waxay tahay eedaysanaha waqti ugu fiican oo abuukaata qabsan karo goormee waay hadduu markii lasoo eedeeyo oo hay-addii loo geeyey booliiska gacanta laga saaray c i d da loo geeyo oo markaasoo lasoo fiican qiraal iyo wax badan oo bixiy asoo wax ka ogeen kabacdeen inaa abuukaata qabsado ma fiican ama ka hor inuu qabsado su-aasha labaad waxay tahay intaa dhegeysanayni waxaa dhahday wixii qasab ku imaado mala qaadanayo ayadoo wixii xaqiiqad ah oo laga keenay hadda camal tanwiin maqnaadiisi aa la sameeyey ninkii wax run noo sheegay runtaas oo sheegnay aninkoo og maka aamusi karnaa qasab ay ku imaadeen waxaa dhahday mala aqbalaan waa dhahday runtaasna waa ognaan maxaa kaloo la sameynaa horgeynta inta socotane markii lasoo qabto qofka horgeynta oo loo sameeyo oo maxkamadda horteeda la keeno hadhuutii qiraal laga qoro suul saaro inta badan eedeysanayaashu waxay dhahaan horgeyntaas aninka ma wada waa noola keenay suul lee saarnay ay ku abuu garsoore la horgeeyey oo qirteen hadalkii laga qoray oo farta suulku soo saareen haddana ay inkaraan hadhuutii sharaf daramo ku aho garsoorihii hortooda ku qirteen caddeenna ma laga rabo inay keenaan bismillahi raxmaan raxiim wuxuu ugu hormariyey muxsin su-aasha abukaataha goomaa la qabsan karaa abukaataha qofka asigoonan weligii dembi gelin oo iska qabsan karaaba already haddaad yeelan karta abukaate oo mar walbaba aad wixii dhacaayo oo sharci ah aad kala tashato haddii aad rabto waa iska dhaafi kartaa adaad isku filantaa adiga abukaataha wuxuu ka mid noqday nolosha sida dhakhtarka oo kale oo ka mid noqda qofka mar walbaba inuu consulta oo siiyo caalamka marxaladaha oo baarista dembiyada oo c i d da ay wado iyo marxaladahaas oo dhanba awood waxaa u leedahay hadiis inuu kula joogo oo garabkaada taagnaado oo su-aal haddii lagu weydiiyo aad tiraahdo hey abukaate saan uga jawaabaa saa ugu fiican ood lasoo tashatid oo weliba yacni sida xeer ku dhigaayo aad si qarsoodi ah oo aanan dadka kaleetood aysan ku maqlaynin aad ula soo tashatid waxaasoo dhan waa xuquuqda aadanaha waxyaabaha lagu ilaaliyo xataa qofka hadduu yidhaha mar waxaa jirto oo qofka hadduu yidhaaho aniga ma rabo abukaate maraan laga yeelinaa jirto marxalad aan laga yeelinaa jirto waa ku aragtay xeerka habka ciqaabta oo laleeyahay waajib waaye inaad abukaate yeelato marxaladda markaad marayso intaa waa midda uu gudbaayo qofkan waa soo sheegnay qiraalku laba waaye inuu ku qorto shurdi uu yahay oo hay-adaha baarista iyo booliska iyo uu soo sheego warka ya asigoo xoog looga keenay amba cabsigelin looga keenay
wuxuu ku badbaadi karaa markuu garsoorka yimaado wuxuu leeyahay garsoore waxaan waxba kama jiraan waana layga cagajuuleena laga keenay ayuu maaragtay yiraa laakiin haddii untuu garsoorka agtiisa warkii ka sheego oo warkii loo jeediyo oo warkaana laga qoray ma jiraa uu yidhaaho oo yaas yiraa waa jiraa talaacu lama ogolo haddii oo fiqiga laga helaayo ma ogi الرجوع عن الاعتراف والإقرار من لقى نقكره أنت قوانك لجارين كصوب وكدب كهر ولا لقى كرا ولا كرا لكن مركا وحلو لسايو وصح ذي هي ومركا محكمة دهرت هذا أو يمادو أو قالي دهرتيس أو يمادو كاس أيا لو ديوان جلينايا قرصوري أو لكيني وأرين دقيقة وباهن abukaatayaasha iyo kuwa maxkamadaha ku jiro waa kiisas aad iska dhib badan hada kiis fiqhi ma ahin maxaa yeelay qofka hadii la keeno oo maxkamadda horteeda la keeno horgeynta la sameeyo la yiraaho waxaan ma gashay saan ma yeeshay oo yiraaha baarista waa badan ta qaybo badan dhiman ma berito hada uu ka dhaqdo shala saan ma idhino sama idhina imaanayso marka sharaf darro weyn ma ahinin ay ila tahay qofkan waa qof xaq uu leeyahay wuxuu dhihi karaa aniga warkaas marka la sheegay si kala u fahmay marka la weydiinayo waxaas ma sameeyay si kala u fahmay saas kula ma jeedin dood waa keeni kariyaa laakiin mar walba waxa lagu fakanaa cadeymaha kale oo la haayo oo aan ahaynin qirashada ayaa lagu kabaaya laakiin qofku waa asigoo qirtay oo haddana mar kale wuxuu leeyahay waan ka naqdo diinta islaamkuna qofku wuxuu qirto xuduudda ilaahay oo kale waa laga naqi karaa qofku inuu ka naqdaaba fiican uu yidhaaho anuu saa loo majeed waata marka sidee bay u ilaaliyeen xeerarka dalka iyo heshiisyada caalamiga xaqa qofka oo ah inaan la jir dilin si uu u eedeeyo naftiisa ama uu u qiro fal dambi ah waan ka hadalnay dastuurka Soomaaliya xeerka habka ciqaabta kulli waxa ku cad qofna inaan lagu qasbi karin inuu naftiisa dambi saaro xeerarka caalamiga ah oo dhanna waxay ka hadleen qodobkaas waa ka hadleen wadamada shuruucdooda dhan inta wadamada sharciyada samaysto xeerarkooda ciqaabta amba kuwa ciqaabta inaan qofna aan la tacdiibi karin oo la jirdiri karin ay qoreen marka بيس في عن يسلك في عن وليه قضب كان أو عالمية شرع الإسلام كانوا شيء آيات أنا لسود الاشتاء والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا قفك رباية مؤمنك أو كل رباية وحاول شقق كل عين قدر قناية ما انتظر شك لها دم بوين وقعد waata maadaama ilaalinta xuquuqda ay dadka u leeyihiin inaan lagu qasbin in naftooda ku eedeeyaan inay dambi qirtaan haddaba arrinkaasi wuxuu xilka saaran yahay arrintaas wuxuu xilka saaran yahay kuwii hadda aan kuu soo sheegayo ah hay-adaha baarista ku shaqada leh iyo hay-adaha garsoorka labadaba inay iska kaashtaan qof bini aadama inaan marnaba loogu cagajuuleyn oon lagu qasbinin in أو نفتيس دم بساره مركو دم بساره يحنقدو رالي عشديس يعني لو غصب مركو خلاص هي مسؤولية كسارنتا guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii tusmada sharciga oo ay nagala qayb galeen asxaabta kale ah Muxsin Saalax Sheekh Ibrahim Maxamed Cali Nuur Shukri Umar Yusuf iyo Qadan Maxamuud Gore waxa marti inoogu ahaa oo nagala qayb galay دكتور عبد الرحمن حسن ورديري waxaana kaga hadalnay xaqa uu qofku u leeyahay inaanu is-eedayn intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo amana Allah ma gurxamo libaaxi dadku gacashanaya garbodkay cayaaraan shabeelkii wax